السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ku xidhan janalka qubtaan ee youtube kusoo dhawaada maanta muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay sidaad ciwaankaba ka arki kartaan 5 shay oo kaa hortaagan inaad horumar samaysid laakiin intaynan muuqaalku dhammaystiran u gudagelin waxaan rajaynayaa inaad muuqaalka like saartad xagga aad janalkana subscribe ka saaraysid aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay daawasho wacan muuqaalka oo dhammaystiran 5 shay ee kuu soo gudbin doono ayaa sii kala leh qaybo kala duwan marka inagoo waqti badan khasaarinayn aan u gudagalno muuqaalkeenna kow ismashquulinta inaad mar walba mashquul tahay laakiin mashquulku kala duwanee maxaad ku mashquulsan tahay waxaad ku mashquulsan tahay wax walba oo naftaada anfacayn kow mashquulka ugu weyn ee dhalinyarada maanta haysta haddii runtaan isku sheegno waa social media muuqaalada tiktok eed kolba saa u kala gedinaysid aadan garanayn meel alla meel ay ku wadaan laakiin aad mawjadaas dhex socotid kolba muusigii kaa soo horbaxa kolba wixii kaa soo horbaxa aad daawanaysid kommentiyada kor iyo hoos aad u siraacaysid wax faa'iido ay kuu soo wada male waxaana hubaal ah inaad ka qoomamayn doontid maalin aan maanta ahayn hadalkaana iga qor talabaad waa inaad tahay mid iska ciyaara video games haddaad wiil tahay iyo haddaad gabarh tahayba video games aad garanaysid bilowgiisa iyo dhammadkiisa meesha ku dhammaanayo video game aad ciyaaraysid mar walba aad soo bilaabaysid marka aad dhimatid ama lagu finish gareeyo aad soo noqonaysid sidiisi lamida ciyaarta hadday dhammaato xitaa aad ku soo ceshanaysid video gamesku waa musiibo aad u weyn runtii mararkaad firaaqo tahay haddaad u baahato dhowr daqiiqo waad ciyaari kartaa laakiin cadceeddu meeshay kugu soo baxday in ay kugu dhacdo adigoo video games dul fadhiya waa khasaaro weyn runtii ta saddexaad ee isleeyahay waa waxyaabaha dadka dhalinyarada maanta mashquulinta aadka u badan ku haysa waa dadka xuneed saaxiibada la tahay asxaabtaada isa soo raacdeen hor fadhiisatiin maqaayad ama xaafadyaha meel ka mid aad fadhiisatiin kolba dadka wadada soo maraya aad reaction ka bixisiin warkaas uu yahay kan sida uu yahay maanta oo dhan aad xaggaa fadhidid ilaa uu salku ku daalayo hadhow markuu salku ku daalana aad iskaga kacaysid xaafadaadiina u hurda doonaysid sidii si lamida beritoolena soo noqonaysid intii in lamida samaynaysid asxaab aan kugu dhiirigelinayn inaad salaada tukatid asxaab aan kaala hadlayn hadafyadaada mustaqbalka asxaab aan kugu dhiirigelinayn inaad wax baratid asxaab aan kugu dhiirigelinayn inaad wax akhridid runtii waa khasaaro aad u weyn haddaad dadka haysatid saaxiib kuu soo sheergaraynaya wax walba oo xumaana saaxiiba dhihinkaas waa musiibo waa shaytaan isa soo suureeyey runtii waxaana ku dhihi lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan u bedel waxaana la yidhi horumarkaaga waa inaad u beddeshaa 1,000 shakhsi ee waa inaadan u beddelin 1,000 qorshe ood lahayd 1 shakhsi shayga afraad aan isleeyahay waa waqti luminta soo hoosgelaya waa daawashada iminka waxaa loo yaqaana Netflix ama musalsalaadka kale ee la iskugu diro taleefanada musalsalku waan ognahay hadduu ugu yaraado waxa uu soconayaa xalqadii 2 saacadood ka soo qaad maalin kasta 2 saacadood haddaad hor fadhidid cimrigaaga imisay cunaysaa waa waqti aad u dheer oo xisaabin u baahan marka musalsalaadku wax ay faa'iido ku leeyihiin male waxan waa wax la soo jilay qisada filimkuna wax laga soo shaqeeyay oo nin qacantiisa ku soo qoray nin wuxuu qacantiisa ku soo qoray dadka jileena ay malaayiin ka helayaan adigana waxa ay helayaan waqtigaaga iyo maskaxdaada iyo inaadan ka fikirin wax mustaqbala iyo wax hadaf runtii hadal xajiiba ayaa ah haddii aad ogtahay waxaan la isticmaalay in uu bilaash yahay ogow inaad adigu tahay waxa la kala iibsanayo waxaan ognahay inuu Facebook yahay bilaash oo cid walba ay isticmaali karto adiga ayaa ah waxa la kala iibsanayo maskaxdaada iyo waqtigaaga ayaa ah waxa la kala iibsanayo sidaa waa inaad u fikirtaa shayga labaad ee kaa hortaagan mustaqbalkaaga iyo hadafyadaada ugu waaweyn inaad xaqiijisid waa inaad iskaga jirtid xaalad raaxo ah maantoo dhan aad saaran tahay sariirtaada dhinacna aadan uga kacayn jaarjigaaga aad soo jiidanaysid taleefankaaga aad shab siinaysid aad sidii wadaysid tiktok aasaa usii baadhaysid aad facebook baadhaysid meelba meeshay kuusii dhiibta aasaa usii gudbaysid maantoo dhan 3 waqti aad fadhiga ku cunaysid haddaadan shaqo hayn runtii haddaad shaqo haysa alxamdulilah dheh haddaadan shaqo hayn kolba dhinacaad isku rogaysid dhinacan markuu ku daala dhinaca kale isku rogaysid wax hadaf ah iyo wax qorshe aadan ka fikirayn sariirtaada aad saaran tahay salaadaadan u kacayn wax akhrisaadan u kacayn
runtii waa dhibaato weyn. Sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa iga tala ah inaad u joojisid hawshaas. Tan labaad ee soo hoosgalaysa inaad xaalad deganaan iskaga jirtid waa inaadan dad kala duwan, inaadan meelo kala duwan, aadan waxba booqanba, inaad meeshaada un fadhido, inaad dibadda u bixin oo leyd soo qaadan, inaadan lugeyn ugu yaraan 15 daqiiqo, inaadan dadka iyo dabeecadahooga aadan kala baran, inaadan baran sida dadka looga tacaamulo, in qofkii aad laba eris dhahdaan baad madax isla gelaysaan, inaad aqoon sida dadka la iskula xaliyo, sida dadka dabeecadada loo baro, sida dadka loola dhaqmo. ileen waxaa tahay qof sariirtiisa un saarane, marka macquul ma noqonaysa inaad dadka kala barato. Dadka kala baro muhiim maaha, inaad dadka kala barato muhiim maaha, laakiin dhaqamada dadka inaad barataa muhiima, si marxalad kastoo kaa hor timaada aad ula dhaqmi kartid. Marka waxaan kugula talin lahaa si aad arrinkaas uga baxdid, sariirtaadan aad u dhaaftid, inaad haddadan fadhiga ka kacdid. Ogowna hal tallaabo waxay dhashaa 1000 tallaabo. Safarkuna waxa uu ka bilowdaa hal tallaabo. Waa safarkaagii, waana waqtigaagii. Intaad da'yar tahay ka faa'iidayso. Shayga saddexaad een isleeyahay runtii waa waxa kaa hortaagan inaad horumar gaadhid, xaqiijisida hadafyadaada ugu waaweyn ee qorshaysatay. Waa inaad wax walba danaysid, wax walba aad danaysid. Shayga ugu yar, hebel baa yidhi wax xaggaa haddaad kelmad yar ka maqashid, inaad u timaado tiraahdo war maxaa tiri, wixii aad tiri muxuu ahaa, waxba ma dhihinee maxaa ujeedaa, may waxbaad tiri igu soo celi, waxaad tiri inaan maqlaan rabaa wixii aad tiri. Waxaas uma baahna runtii, kumana anfacayso. Inaad kelmad yar ku aragtid social media ood commentiga imikadanba ku oradid maxaa laga wadaa, inaad meelaha tagtid la fadhiyo dadka hoosta ka gashid, hadalladoodana dhegaysatid, isla markaaba aad weydiisid maxaa laga sheekeynayaa, maxaa xagga lagu hayaa. Meel walba oo kaa soo horbaxda aad dalaq tiraahid, xaggan haddii siyaasad laga warramayo waa taagan tahay, xaggan haddii ciyaaro lagaga warramayo waa taagan tahay, xaggan haddii game iyo video games iyo waxyaabo kale lagaga warramayo waa taagan tahay. laakiin xaggan haddii diin lagaga warramayo ma taagnid, xaggan haddii axaadiistii nebiga lagu marinayo ma taagnid, xaggan haddii mustaqbal iyo ahdaaf lagaga sheekaynayo ma taagnid. runtii wax lagu farxa maaha, waa wax laga naxo runtii. Ta kale ee soo horgasha isla arrinkaas waa inaad ay muhiim kuu tahay waxay dadku kaa dareensan yihiin. inaad hebel u timaadid, ka waran sidaan u ekahay maanta, ka waran sidaan u labistay, ka waran sidaan u xiirtay, ka waran maanta markaan wax jeedinayay sideen u jeedinayay, ka waran waxaanaan soo diyaarsaday. inaad wax kasta oy dadku kaa sheegaan ay ahamiyad kuu tahay. hadday ku dhiirigeliyaan aad kor u kacaysid oo duulaysid, hadday wax kaa sheegaanna aad dhulka imanaysid. runtii waxba cidna kaama gelin, hawshaada ku madax adayg, waayo cadowgaaga waxaa la yidhi maanta ha nicin, beritoolaad u mahad celin doontaa, sababtoo ah waxaad u muujin doonaa inay khaldan yihiin, adiguna aad xaqiijisay wax ay xaqiijin kari waayeen. sidoo kale waxaa la yidhi cadowgaaga iyo dadka ku necab u mahad celi, waayo waa dadka keliya og inaad ka fiican tahay. qof aadan ka fiicnayn kuma nici karaba, qofka ku necab waa qofaad ka xun tahay ama kaa xun. marka inaad qof walba ra'yiga uu kaa qabaad ogaatid muhiim maaha runtii. ta saddexaadna waa arrinkaa sii hoosgalaysa, waa inaad dadka eryatid, dadka raaligelintooda ku dadaashid. wax walba ay dadku kaaga baahdaan marna aadan may dhihi karinba, mar walba aad diyaar tahay. wax walba oo lagu sheegto ama wax walba oo lagaa codsado xaggaa intaad ku joojisid hawshaadii aad hawshooda gelaysid. hebel hadduu ku yidhaahdo namari suuqa adigoo xaggan cashir ku jira ama wax baranaya ama qur-aan akhrisanaya, isla markaaba intaad kitaabka laabtid aad cararaysid. runtii ma fiicna arrinkaas. arrinka afraad ee isleeyahay waa arrimada ugu waaweyn ee mustaqbalkaaga kaa hortaagan waa inaad wax walba dib u dhigtid. inaad tiraadid cudurdaar baan haystaa maanta, far baa layga hayaa, ma qori kara cashirkaas, madaxay xanuunaya maanta, hurdada kama kici karo, lug baa xanuunaysa maanta, sporti ma samayn karo. inaad u dhigatidna wax walba berri, inaad tiraadid berri waan samayn doonaa, berri maxaa ka fiican, xilligan waa xilli dambe, waxa ma qaban kartid, waa runtaa, beritoole bilow. ha dhihin weligaas, isla markaa bilow. qaacidada 5 sekin ku dhaqan, 1 2 3 4 5 ku dhaqaaq hawshaada. arrinka saddexaad ee soo hoosgalaya dib u dhigidda waa inaad tiraadid ama aad daysid intaad qorshe fulisatay ama intaad qorshe dejisatay, aad tiraadid aad sidaa ku dhaaftid. qorshe kale aad dejisanaysaa, sidii baad ku dhaafaysaa. qorshe aad iyo aad kaaga weyn oodan qaban karin aad dejisanaysaa. waa xamaasad, waa 5 daqiiqo ugu horreysay xamaasadda.
isla markaasna waa aad iloobaysaa. Marka waxaad qaban kartid qorshayso, wax aanad ku dhaqmi kartid qorshayso. Arrinka shanaad ee ugu dambeeya ee kusoo gabagabaynaya waa inaadan ku xidhnayn dadka wanaagsan. Hadday social media noqoto, waxaa jira dad wanaagsan. Hadday noqoto real life dadka aad la nooshahay, waxaa jira dad wanaagsan. meel walba waxaa jira dad wanaagsan. Inaadan dadka asxaab iyo qudwo aadan ka dhigan oo dadka xunxun weligaaba aad daba socotid. Inta kale soo hoosgalaysana waa inaadan khibrad aadan u lahayn waxaanaad qabanaysid. waad rabtaa inaad wixii qabatid, khibraddeedii ma lihid, aqoonteedii ma lihid, meeshii laga baadhayay ma lihid, dadkii kuu xidhiidhin lahaa, kaa fududayn lahaa howlahaas ma haysatid. waa iska rabtaa taasna qorshahaaga kuma anfacayo. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. fadlan channelka subscribe saar, videogana like saar. aad iyo aad u mahadsan tahay. commentigana igula wadaag haddii aad wax ka faa'iiday. waan rajaynaya inaad wax ka faa'iiday. intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan kaga tegayaa peace.